Sidee ayaa loo doortaa ciwaan cilmi baaris? Muuqaalkan ayaan ku sharxi doonaa. Kusoo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Somali Fit. Waa muuqaalo taxanaa muuqaalkii labaad oo aan ga hadli doono sida loo doorto ciwaan cilmi baaris. Muuqaal hore aan soo geliyaa jiray oo ga hadlay sida article oo bilaash loola dego hadduu lacag u yahay si free oo la degi lahayd. muuqaalkaasi description-ka aad ka heleysaa. casharka labaad waxaan ku qaadan doonaa sida loo doorto ciwaan cilmi baaris. waana muhiim markii aad rabtid inaad dooratid ama aad qodid book inaad dooratid ciwaan kugu habboon sida ugu saxan. waxay base u noqonaysaa ama bilow u noqonaysaa hadhow inaad ciwaan cilmi baaristaada ay ku guuleysatid. haddii aad ciwaan si khaldan ama ciwaankaagu si fiicnaan hadhow markii aad shaqada guda gashid way kugu adkaanaysaa ama kuma raaxaysanaysid. ugu dambeynna waxaad qoraysaa waxaad boobsiisay. waxaan isla fiirin doonaa dhowr slide oo aan ku sharxi doono sidee ku dooran doontaa cilmi baaris ciwaan cilmi baaris ama how to select research topic. okay, muuqaalkan objectiveska aan ka leeyahay ama ujeedooyinka aan ka leeyahay waxaa kow ka ah in aan sharxo habraaciyo kooban kuwaas oo aad ku dooran kartid ciwaan inaba aan caadi ahayn hadhow. sidoo kale objectiveka labaad waxaa way inaan fududeeyo ama ay si fudud ay u fududaato markii aad ciwaan dooratid inaad qabatid iyo inaad ka guul gaartid faa'iidana aad ka heshid ciwaankii aad dooratay cilmi baarista kadib markaa samaysid. macnaha in hadda marka aad dooratid sida u qaban lahayd iyo markaa qabatid kadib faa'iidada aad ka helaysid inaanu muuqaalkan ay fududeyn doonaa insha allah. guud ahaanna waxaan ku sharxi doonaa ilaa 3 step oo kuu fududeynaya inaad ciwaankaagu noqdo mid saxan hadhowna ku fududaado inaad si fudud oo aad comfortable adigoo aduu ku raaxaysanaya aad researchkaaga u qodhid hadhowna aad soo saarid wax portfolio ama warqado oo viral oo aad lala cajabo. okay, tibka koowaad waxaa weeye inaad dooratid. maxaad dooranaysaa? waxaad dooranaysaa ciwaanka aad jeceshahay. waa maxay ciwaanka aad jeceshahay? favorite-kaaga waxa adigu ciwaanka aad jeceshahay. ciwaanka aad jeceshahay hal shuruud baa ku xiran, waa inaad waxaa baratid waa inuu ciwaanka ku jiraa. sidoo marka labaadna waa inaad aqoon durugsan inaad u leedahay ciwaanka aad dooratay. markaa ciwaan baad dooratay waa inaad ciwaankaas aqoon u leedahay. ciwaankaas haddaadan aqoon fiican aad badan u lahayn waxay kaa dhigaysaa hadhow researchkaaga ama cilmi baaristaadii inaad wax badan aada kusoo bandhigin adigina ay kugu yaraato informationka aad hadhow ku qori doonto meesha. sidoo kale inuu yahay ciwaanka aad dooratay inuu available uu yahay meesha aad joogtid markaa. sidoo kale inuu relevant ku yahay, inuu deegaankaaga inuu ku badan yahay. haddii xanuun noqoto, haddii xaalad kale noqoto, waa in deegaankii wax laga heli karo ay tahay. then laba wada u maraysaa si aad ciwaanka u dooratid. ciwaanka aad jeceshahay, aqoon u leedahay, deegaankiina laga heli karo. laba wada u maraysaa. labada wada u maraysa waxaa way inaad observation samaysid, inaad indhaysid oo aad soo ogaatid bulshadii aad fiirisay ama deegaanka aad fiirisid maxaan ka samayn karaa cilmi baaris. iyo marka labaad oo inaad raadisid ciwaanadaas waxay ka raadinaysaa googlaha. waxaad uga raadinaysaa inaad ciwaano oo aad kuwa jeceshahay inaad ku qortid googlaha kadibna aad baadhid article aad heshid articlada kadib aad
conclusion-kooda aad baadhid ama artikeladaas dhan aad akhrisid kadibna aad kala soo dhex baxday ciwaan muhiim ah marka aad samayn kartid. labada qaabba markaad ciwaanka aad dooranaysid waa samaynaysaa, choose-kaaga waa ku xiran, labada wadda ayaad maraysaa, inaad indhaindhaysid iyo inaad aad researchyo horey loo sameeyey aad akhrisidid conclusion-koodana aad kala soo dhex baxdid research marka aad samayn kartid cilmi baaris. tibka labaad waxa weeye tusaale ahaan example anigu waa kala jijibiyey tusaalaha kasoo qaatay ugu horeeya waxaan ku fekeray inaan obesity ka sameeyo iyo type 2 diabetic ama diabetes bas iyo xayaan ka sameynaya Soomaaliya ka sameynaya. okay waa broad topic waaye, cinwaan weyn waaye. then tibka labaad waxaan sameynayaa inaan filter gareeyo ciwaankii ama scoop saaro, inaan specification sameeyo, specify to your area. waa inaad deegaankaagii xanuunka ku base garaysaa, xanuunkan deegaankayga inaad sii macnaha specification broad markuu hore broad waa inaad sii dhex gashaa. marka sii dhex galaysan waa inaad deegaankii ku base garaysaa, macnaha lama rabo xanuunkii wax deegaanka ku badnayn oo aan ku yar inaad oo ciwaankii aad kaga sii dooratid markaas filter ku sameynaysid. oo tusaalahan diabetes baa dooratay, waa inaad diabetes sii kala qaadaa factorieska ama gudaha usii gashaa. gudaha marka usii galaysid waxaan deegaankaaga ku badnaa haddaad doorato waxay kugu keenaysaa hadhow in researchkaaga uu waqti badan kugu qaato, inaad dadkii aad heli weydid, in information kugu yaraado. marka wax muhiima in relevant ku sii yahay specification-kaagi. sidoo kale waa inuu deegaanka suitable ku yahay, deegaankiina ay aqbali, deegaankii bulshadiiba ay aqbali karaan. haddii wixii aysan deegaankii isu ku badnayn ama deegaankii ama bulshadiiba labadiiba aysan waaqic u ahayn, waa acceptance u ahayn, aysan macquul ahayn in laga qabto deegaanka, ma qaban kartid, mana suurtagelayso. tusaale ahaan haddaad dhexdid waxaan baariyaa waxaan waddanka ku badan laakiin xanuun aan waddanka ku badan laakiin aanan laboratories-kiisii aan lahayn, accessible aan ahayn in la ogaado xanuunkii. haddaad dhexdid waa baariya sida kansaro iyo wax lamid ah, haddaad dhexdid waan baariya waxa kugu adkaanaya deegaanka suitable kuma aha, waayo maba lahanba. so adigii hadda waxa kugu imaanaya dabdhaco badan. sidoo kale waxaa muhiima time frame, inaad researchka aad sameynaysa cilmi-baarista inaad waqti taqaanid, waqti intee lagugu qaadanaysaa, waqtiga ay kugu qaadaysa markaad taqaanid adigana waa inaad waqtiga lagaa rabo oo jaamacaddu ama cilmi-baaristan inta waqtiga lagugu talagalay inaad isku base garaysid. sidoo kale feasibility-ga in waxaan kharashka ku baxaya inuusan kharash badan isku bixin, ama kharash zero kharash uu yahay ama kharash yar. haddii kharash badan uu ku baxayo adiguna arday aad tahay ma ka baxi kartid researchkaagina ama cilmi-baaristaadina waxaa ku imaanaya dib u dhacyo badan. okay ka hor intaana tibka saddexaad u tegin waxaan sameynayaa filter baa ku sameynayaa ciwaankii weynaa broadka. waxaan u kala qaaday them one, waxaan idhi prevalence of middle age group, heer kor u kaca dadka u dhexeeya da-dooda 25 ilaa 40 ama 50 inta u dhexeysa, heer kor u kaca ama heerka obesity-ga iyo type 2 diabetes-ga dadka qaba heerkooda inaan uga rabaa Boosaaso oo si specific Boosaaso Soomaaliya. even xitaa Boosaaso kasii yareyn karaa haddii aan rabo specific health center haddii aan rabo, ama xarun gaar haddii aan rabo, iyo meel gaar xaafad gaar haddii aan rabo, waa sii dooran karaa. kadib waxaan tegayaa tibkii saddexaad. tibka saddexaad oo aan raaciyo waxa weeye markii aan intaas sameeyo, aan filter ku sameeyo ciwaankii, aan sii gudagalo, waxaan sameynaya saddex su'aal test baa ka qaadaya, 3 su'aal baa isweydiinaya. waxaan ma detectable ba, wax la ogaan karo ma yahay, yani may waxaan ka wadaa wax dood abuuraya ma yahay, ama waxaan fikrad ka soo horjeeda ma jirtaa. fikradda ka soo horjeeda waxay dhalanaysaa dood oo ah waxaan ma jiraan mise ma jiraan. okay ciwaankayga hadda debatable wuu yahay, sababtoo ah fikrada ka soo horjeeda way jiraan, in obesity waxyaalo kale ay keenaan way jiraan, type 2 diabetic 2 kaliya uusan keenin. sidoo kale type 2 diabetic inaysan keenin obesity bas, fikrada kale jira in waxyaalo kale ay keenaan, hadday stress noqoto, hadday cunooyinka hadday noqoto sida obesity, sidoo kale haddii lifestyle-ka kamid ah waxyaalo badan baa mid ah. sidoo kale plausible ma yahay ciwaankaaga, oo ah wax ma jiraan valid evidence ma jiraan. macnaheedu valid evidence wax ka wadaa ansax ama oo article oo macnaha xoojinaya
oo evidence ma jira oo ciwaanka ku saabsan. Yes, waa jira article badan baa soo akhriyay oo ku saabsan ciwaanka hadda aan doortay oo obesity iyo type 2 diabetes waa jiraan. Research badan ayaa laga sameeyay adduunka, waa sax, waa laguma qabsan karo. sidoo kale resultiga ka imaanay hadhow significant ma yahay, resultiga kasoo baxa mid waxtar lama yahay. Yes, haddii aan ogaaday in prevalence-ga uu badan yahay ama kor u kaca ama heerka obesity iyo type 2 diabetes dadka qaba ay aad u badan tahay, waxa ogaanaya in xanuunka laga hortago. sidoo kale in xanuunka lama xiriir leeyihiin ay dhibaato tahay in obese adigoo ah aad xanuunkiina khatar ugu jirtid, iyo in la yareeyo dadaal loo galo. marka ciwaankayga hadda waa ciwaan la dooran karo way. Okay, adigana waxaa laga rabaa ciwaankaaga inaad su-aalahan kale isweydiisid. ma tahay ciwaan laga doodi karo? ciwaankaagu evidence ma u haysaa? article kale adduunka laga sameeyay research hore kale hadhowna result ka soo baxa ma yahay mid waxtar leh. Okay, hadda waa generation baa sameeyay waa kan ciwaankayga waa dhisay. waxaa yidhi prevalence of obesity associated with type 2 diabetes among suspected middle age adults in Bosaso. ciwaankayga waa jijibiyey, then waa isku xiray, waxaan kasoo saaray ciwaan viral ah oo debatable oo believable iyo oo significant result yeelan kara hadhow markii mustaqbalka aan dhameeyo researchkaas kale. Okay, summary haddaan sameeyo, waana ciwaankii aad doorataa. ciwaanka doorashadan waxaa ku dooranaysaa waxaad jeceshahay iyo aqoonna aad u leedahay. waxaana ku dooranaysaa inaad observation sameyso soo indhadhayso kow, ama inaad ku doorato inaad tobiyo kale aad raadisid, ama aad cilmi baarisyo badan aad baadhid kadibna aad soo ogaatid ama cilmi baarisyo badan aad akhrisid kadibna conclusion-kooda aad kala dhex baxdid research kale aad sameyn kartid, ama kuwo kaloo jira inaad koobiyeysid wadankaaga ama deegaanka ku base garaysid si aad u ogaatid deegaanka iyo deegaankan difference ugu dhexeeya. waa sameyn kartaa asna. sidoo kale filter wana ku sameysay ciwaankii weynaa inaad si gudaha u sii gashay narrowing ku sameysid, dadna adigoo sameynaya oo u fiirinaya place-ka ma aqbali karaa muxuu ahaa deegaankaaga ku badan yahay wax macquul ma yahay. sidoo kale waqtiga ma ka baxi karaa, sidoo kale dhaqaale badan miyaa ku baxaya waa mayso ma. hadduusa dhaqaalaha ku badan usu ka baxayn waa okay. deegaankii mid suitable ma ku yahay, acceptance ma yahay. kadib maxaa sameynaysaa test ma ka qaadaysaa, waxaad isweydiinaysaa debatable ma yahay, waxaan wax laga doodi karo oo muran dhalin kara ma yahay. Yes uu yahay. ma yahay waxaan wax believable oo article oo kale oo caddayn ah ma haysataa in waxaan ay jiraan. saddex, inaad significant soo baxa resultiga soo bixi doona significant ma noqon karaa. hadduusan rajo laga qabin inuu significant noqon karin, then caqabad waxa ku imaanaya ciwaankaagii waxa ku jira daciif baa ku jira, ama waxa ku jira nusqaan baa ku jirta, ama saddexda haddii ka maqantaana nusqaantu aad bay ugu badan tahay. haddii saddexdana laga helo, then you can do stepka afraad you can do waa qaban kartaa researchkaagii, wuxuu noqonayaa mid viral ah adna ku raaxaysato comfortable ah ku noqota. insha allah afarta step haddaad sameyso researchkaaga waa ku guuleysan doontaa insha allah. sida loola dego article walba oo lacag ah si free ah bilaash ah. muuqaalkaasi oo dhammaystiran waxaad ka helaysaa description-ka ayaa linki idin soo dhigi doonaa. linkigaas ayaad riixaysaa kadib muuqaalkaasi si toos ayaad u daawan kartaa. sidoo kale channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe hadda dheh, like saar si asxaab badan uu gaaro, commentina noo reeb faalanaad oo ka bixinayo haddii aad fahantay oo aad